ومر kale iyo maqal kale soo dhawaada saaxiibayaal waa taxanaheennii labaad iyo kalkiisii shanaad markan waxaa inoo martiya Abban Haykal intaanan u gudagelin barnaamijka aad baan idinka raaligelinaya kala mashquulka iyo waqti soo helwaaga ina soo kala dhexgalay Abban Haykal waan ku faraxsanahay kamiir ahaan inaad naga aqbasho barnaamijkan inaan kaa qabano oo aad waqtigaaga wax naga siisid kolka hore soo dhow Haykal aad baa u mahadsantihiin bahda Mir podcast sharaf weyn baan ay tahay inaan ka qayb galo barnaamijkan anigoo ka faa'iideysanaya fursadan ay siiseen waxaan rabaa kale inaan idinku booriyo aan runtii aad idinku dhiirigeliyo shaqada wanaagsan ee wadan oo ah in habkan casriga ee warbaahintan casriga ama idaacadahan online-ka qaabkan oo kale u baxaya oo runtii ah wax dunida maanta ay habka warbaahintii hore ee maaragtay mainstream-keeda ma hore soo jirtay looga gudbayo marka ina qaybta ama doorka qaadateen runtii waan ku bogaadinaya iyadana aan ku soconaa buwan horta bilowgaba erayada suugaan iyo sooyaal maxay kala yihiin sooyaal waa taariikh ama jirtadii la soo dhaafay ee dunida iyo dadka si kooban hadii loo eegano waa tagtadii hore ama dhacdooyinkii nolosha adduunka soo maray wixii taariikhoobay markaa kaydsamay baa sooyaal marka sooyaal macnaheedu waa taariikh sidaas ay ku tahay wixii la soo dhaafay oo sidaas sooyaal ama soo jireen u tahay suugaantu iyadu marka koowaad waa laan aqooneed oo hab urursan ama soohan u kaydisa oraahdii dhacdooyinkii iyo waxyaabihii gaarka ahaa ee ay umadi lahayd mar kalena waa xirfad weedha ama hadalka filiqsan ururisa oo quraarta una yeesha dhadhan iyo habdhac dhegta iyo carabka ay si fudud ay u qabsan karaan waxa kaloo jirta ereyga fan ama fan iyo suugaan dadka qaarkood marka qaar is dhexgelin waana laba maaragtay jaad oo kala duwan fan isagoo asliyan waa yani ereyahan qeexitaankiisa waxay culimada afka ee Soomaalidu ku qeexaan inuu yahay farshaxanka maqal iyo muuqaal ama qoraal ee bulshada leedahay sida suugaan iyo heeso ciyaar dhaqameed iyo riwaayadaha ama filimada iyo la sawir gacmeedka aslida qalabka la qoro ama la qoraaro xarnida oo waxyaalaha farshaxanka lagu sameeyo waxyaalaha la midka marka suugaan kasta waa fan laakiin fan kasta suugaan ma aha halka suugaantu iyaduna ay tahay iidaanka ama koosaarka hadalka iidaanka waxa laga wadaa ama koosaarka hadalka wax kasto hadal filiqsan ama hadalka caadiga ah in hadda ku hadlayna tiraabta ah u yeela dhadhan gaar ah oo macna soohan oo dadku maaragtay hal qabsi ama dhegtooda qabsato u ka dhasho baa la yiraahdaa suugaan saas suugaanku ku noqda marka suugaantu waa hadalka kiisa dhisme noqda ama dhisma ee dhadhan iyo dheelitir cudoon yeesho weeye marka saas ku noqday suugaanu kaga doonaaday hadalkii kale sida loo og yahay xiriir weyn baa ka dhaxeeya suugaanta iyo sooyaalka kaasoo ay dadka qaar ku tilmaamaan in ay yihiin laba isku tolan oo aan meelnaba ku kala tagi karin kolka maxaad nooga sheegi kartaa xiriirkaas ka dhaxeeya suugaanta iyo sooyaalka xiriirka ka dhaxeeya sooyaalka iyo suugaantu asliyan waxa weeye horta mid ay jiridiisu ku xiriidho la kabiyo isku sidkan oo isxambaaraya oo marka suugaanta ayaa sooyaalka qayb kamid ah ama in badan kamid ah soo gudbisa sida inagu aynu nahay oo bulshahana dhaqankeena ama wixii hore inoo soo maray waxa inoo keydiyay oo habka kaliilan manhiin umadihii qoraalka lahaa ee taariikhaha iyo dhacdooyinka qori jiray ama keydin jiray marka suugaanteena noqotay wax soo xambaaray sooyaalkeena marka taariikhdeennii hore waxaanu ka dhexdheehanaa suugaanteena waa ilaa hadda marjaca ugu weyn inuu adeegsana waxa sida u dhaceen ama dhacdooyinkii hore sida u taariikhoobeen marka si markaad u eegto bulshooyinka inagoo kala ah suugaanta iyo ma kala maarmaan iyo sooyaalku waa laba isku sidkan weeye waa maxay saameynta ay suugaantu ku yeelato bulshada si ay sooyaalkooda u fahmaan saameynta ay suugaantu ku yeelato waxay arrin ku xidhan inta badan caadooyinka iyo hidaha bulshooyinka matalan Soomaalida suugaantoodu waa sooyaalsan hore xusay
waana shayga keliya ee aan isleeyahay waa waxa keydiyey taariikh badan oo aynaan qoraal ama tixraac kale ku helneen. marka yani saameynta suugaantu nolosheena ku leedahay waxay ka muuqataa halqabsigeena nololeed ee maalinlaha ah oo dadkeena marka wax sheegayaan ama wax gudbinayaan waxa la sidii hore loo yiri ama sidii hore loogu mahmaay oo ay maad suugaanta bay ka mid tahay. marka sidii gabaygaasi ilaa ama tixdaasi tiri ama meeriskaasi ilaa ama mahmaahdaasi tiri baynu tusaale u soo qaadanaa. marka sidaasay maartay saameyn weyn ugu leedahay sooyaalkeena. sheekafaneedu waa laan ka mid ah laamaha geedka weyn ee suugaanta, sidaa awgeed kaalin intee la eg ayay iyadu waa suugaanta ugu leedahay xambaarista sooyaalka iyo taariikhda, iyaga oo dadka qaar aaminsan yihiin in mala-awaalku aanu taariikhda si run ah uga marakici karin. sheekafaneedu sida aad xustay runtii qayb weyn bay ka tahay suugaanta. mar kale iyaduna waa orahdii filiqsanayd ama hadalkii filiqsanaa ee iska maaragtay aan habaysnayn oo inta hab farshaxna loo falkiyey kadibna keed qoraal ama cod galay oo sidaa ku noqday wax kaydsamay baa isagana noqday sheeko faneed. marka in la daabaco oo warbaahinta maxaa la yidhahdaa uu ka soo baxa casriga ah oo qalab ahaan inta loo soo daabacay waraaq ahaan ama buug ahaan loo akhriyo, iyo inuu noqdo waxaan hadda dunidu maanta casriga la isticmaalay in online loo akhriyo, labadaba waa qoraalkii oo maaragtay soo gudbay ama lasoo gudbiyey. marka sheekafaneedu saas iyaduna maaragtay kaalin weyn ugu leedahay suugaanta iyo jiraalka bulshooyinka. matalan bulshooyin badan xadaaradooda bulsho waxa ay inta badan laga dheehdaa ama laga akhriyaa waa sooyaalkooda aan dhahday wax weeye sheekafaneedooda. marka bulshooyinka badankooda leh kaydka taariikhana qoran sheekafaneeda waxaa meelo waaweyn oo taariikhda aad looga daraasayo. farshaxanka oo ka mid ah suugaantu siiba sawirida la xardho oo u taagan inuu noo soo gudbiyo ama inoo soo wariyo sooyaal dhan oo boqolaal sano noqon kara waa inagu yaryahay marka si qoto dheer loo fiirsho, ama waa inagu yaryahay oo waa inagu wariidh. marka maxaad isleedahay maqnaashiyihiisaasi uu inoo dhimaya? mudnaan intee leeg buuse leeyahay si uu tagtadii wax uga tibaaxo? farshaxanka waxaynu isaga ku tirin karnaa dhanka fanka oo xoogaa uu ka yara duwan yahay suugaanta sidaan hore xusay. sida badanna fanku waa agab ama aalad aadamuhu ku muujiyo sawirciisa ama qayb aqoontiisa ka mid a. fanka xooggiisuna waa falka ama waxqabadka ile aragtida ah sida muuqaalka, maxaan ku idhahdaa sawirka, cod samaynta iyo waxyaalaha la midka. marka farshaxanku waa tiir aad muhiim oo isaguna dhismaha fanka qayb weynka ah oo dee muuqaal ma visual ah ama maaragtay mid dhigana ah. marka saas isaguna qiimo weyn u leeyahay runtiina waxyaalaha dunidu qadariso oo waxa loo yaqaano suugaanta casriga ama literature-ka iyo artska marka la isku daro labadaas oo fan iyo suugaana oo dhaqankii iyo qoraalkii iyo midhihii tirsanaa intaba la isku tiiriyo ayuusna door weyn qaataa oo ah in wixii sawir lagu muujiyo ama dhacdooyinka kale ee ka baxsan suugaanta iyo oraahda ayuusna si sawir loo muujiyo. marka farshaxanku saas uu qiimo weyn u leeyahay. aad baad mahadsantahay abwaan. haykalow suugaantu haybta ummadda waa ka qayb, haddiiba aanay ahayn qaybta ugu mudan. haddaba suugaantu sidee bay u noqon kartaa agabkaydiya sooyaalka ummadda ay haybta u tahay? suugaantu siday awal u ahayd inaga gaar ahaana agabka keliya sooyaalkeena keedii ayay haddii lasii casriyeeyana tahay agabka qurahe aynu runtii waqti badan sooyaalkeena iyo odhahdeena, sawirceena iyo afkeena iyo baadisooceennaba xogtooda xambaari kara. marka yacni sumada weyn ee laynagu gartaabay ka mid tahay suugaantu. marka wada bulshada Soomaalida ee dunida kale ku qeexda ama qoraalada marka laga sameeyay yihiin dhulkii gabayga ama land of poetry marka qaar ay dhahdo waa ummad oral society kaliya ummad hadashan waa bini'aadanka oo dhan ba hadla waxa laga wada ummad wax tirisa oo waxay tirisay tiraabta caadiga ka duwanaa intay dhisato qurxiso dabadeedna sidaa maaragtay ku dhaqan gelisa. marka waa baadisocdeeni waana maaragtay haybteeni maaragtay gaarka ahayd oo laynagu garanayay. marka saasay tahay wax nolosheena ku lamaan oo aynaan Soomaalida iyaan la kala sooci karayn suugaantooda. aad baan kaaga mahadnaqayaa abwaan haykal aqbalaadaada iyo waqtigaaga marar badan oo aan 2 ahayn 3 ahayn. aad baan mahadsantihiin dhegeystayaal.
adinka mudan wanaag oo dhan waa idin rajaynaya aad baa ugu mahadsantihiin waan ku faraxsanahay mar labaad inaan barnaamijkeeda kala qayb galay